garaad jaamac garaad Ismaaciil oo kamid ah garaadada waaweyn ee reer Soomaaliland gaar ahaan garaadada gobolka Sool oo dalka dib ugu soo laabtay maalintii shalay ayaa munaasabad ballaaran oo qada sharaf ah waxa hoteelka Mansour ugu sameeyay beesha Subeer Awal munaasabadan qada sharafta ah oo ay ka soo qayb galeen salaadiyiin aad u tiro badan oo hormuud ka yahay suldaanka guud ee beesha Subeer Awal wasiiro madax dhaqameedyo salaadiyiin xildhibaano ka kala socda golayaasha qaranka Soomaaliland ayaa ujeedada iyo dulucdu ay dhexidhiidhay mid ay ku maamuusayeen kuna sharfayeen garaadka garaad jaamac garaad Ismaaciil hor suldaanka guud iyo garaadka waxa munaasabadaasi hadallo kala duwan ka jeediyay wasiirka wasaaradda maaliyadda Cabdicasiis Maxamed Samaale gudoomiye ku-xigeenka koowaad ee golaha wakiilada Baasha Maxamed Faarax ku faraxsanahay anigoo ku hadlaya magaca garaadka garaad jaamac garaad Ismaaciil iyo wafdiga la socda beesha Subeer Awal ee casuumadii ugu horeysay fiidisay aad iyo aad baan ugu mahad celinayaa waa la isku lahaa magaaladu waa magaaladii haddaad idinku bilowdeen inta kalena way idinku xigi doontaa kalkacaylka aad tusteen garaadka iyo wafdigana aad iyo aad baan u soo dhawaynaynaa aad iyo aad baan ugu faraxsannahay waynu isku lahayna wax cusubna maaha gobonnimada iyo martigelinta wax dhaqan aad u lahaydeen laydinku yiqiin الله وبركاته إن شاء الله كل خير قبيلة هي كديجو مناسبة قالقة صلاتينتا بيش السبيرة والله يوصل ما يصير قرات هي بيش يسا فرحد وين بين نوتها يكونتين أن كسوق يبقلوا الحمد لله رب العالمين قرات جامع هي بيش أبو حلين يسود هذا كسود هذا عاصمة الجمهورية الصومالية كسود هذا دلكينا كسود هذا دلكينا وأنتي اللي سكون بعنا حل الله بعنا بانو قرات فيني هذا البنا يعني جاي جماعة فرة فرحدوا بيناتهم مناسبة صلاتين تيجي سميين إنه ما تكسوق يبقلوا ugu horeyn munaasabadaasi oo hadallo kala duwan laga jeediyay waxa hadalka muga iyo miisaankiisa ugu weynaa ka had Suldaan Xasan Suldaan Cabdiraxmaan Suldaan Cabdilaahi Suldaan Diiriye oo ugu horeyn hadal mahadnaq soo dhaweyn iyo qiimeyn ah ku soo dhaweeyay garaad jaamac garaad Ismaaciil Suldaan Xasan oo munaasabadaasi ka hadlaya ayaa dadweynaha reer Soomaaliland iyo guud ahaan qaranka Soomaaliland ugu baaqay nabadgelyada wada jirka iyo xasiloonida qaranka Soomaaliland suldaanka oo ka hadlaya munaasabadaasi waxa kamid ah hadaladiisi quraanka cadadkiisa idinku salaamaya runtii farxad weyn bay noo tahay farxad weyna way tahay inaan maanta halkan ku soo dhaweyno garaad jaamac garaad Ismaaciil oo bahdii dhaqanka fogaaya iyo waftiga la socda oo halka markii la iga tirinay acyaanta meesha socota aalaas caanood u kala harin gobolkii Sool waxaan ku soo dhaweynaynaa qalbi furan baan ku soo dhaweynaynaa maskax furan baan ku soo dhaweynaynaa kalgacal baan ku soo dhaweynaynaa abtiinimo ku soo dhaweynaynaa maadaama waan idin yara xasuusinayaa idin faa'iideyn maaye Subeer Awal waxa dhalay dhul bahante marka halkan abtiyaal ka leeyahay waa halka waxa leeyahay abtiya khal walid soo dhawaada baan leeyahay garaadka iyo acyaanta kale ee qiimaha badan ee sharafta leh aan ilaa xalay ilaa habeen hore u kala harin gobolkii Sool ilaa halkii ugu dambeysay ragga maanta halka ka socday halka yimid acyaantii ummadda hor fadhidaya waxaan ku soo dhaweynaynaa caasimadii jamhuuriyadda Soomaaliland sidii dhaqanku ahaa sharaftu ahayd karaamadu ahayd waxaan soo dhaweynayaa garaad jaamac garaad Ismaaciil oo aan isleeyahay horta bal hadiyada guddoonsi maadaama uu soo yahay guddoon insha Allah bismillaah kariim ولدي هبنا ولا أختي أبو هيدا خوش على سوء أجاسيتي أنتي سوء أجاسيتي أنتي كشقيسي بوا أم هاد علينيا أروكو هذا يا أفك بيش سبحان الله يا أفك كلا الدمار بتم سلاديته وين Somaliland بسم الله الحمد لله صلاة والسلام على السيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم صلاة دينتا garaad jaamac garaad Ismaaciil ayaa hadalka uu ka jeediyay munaasabadaasi la xidhiidhay mid mahadnaq ah iyo duco isugu jira isaga oo ku tilmaamay qaranka Soomaaliland mid halka uu marayo lagu faani karo isla markaana ku booriyay guud ahaan shacbiga Soomaaliland in ay gacmaha baarlamaanka golaha wasiirada uqaasha culamaa diinka dhalinyarada iyo saxaafadaba dhamaantiin waxaan ku salaamayaa salaanta islaamka السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سلام بعد ما هذا إلهي بيسكره
sukeen keenay maanta halkan oo anigu aan shalayna sheegay inaan marti ku ahayn ayaa horta mahadda koowaad iska leh mahadda labaad waxaan u soo jeedinayaa dhammaan intii soo abaabushay xafladan quruxda badan ee sharafta badan ee qiimaha badan ee nagu soo dhaweysay halkan walaalahooda suldaanku wuxuu yidhi dhulbahante subar awal hooyadii dhulbahantay ahay hadda dhulbahantana arab baa dhalay dadku meelo walba waa iskaga xidhan yihiin laakiin maanta beesha halkan maraysa waa beeshii harti wey magacaanu ku fadhinaana waa magacii harti wey waadna ku mahadsantihiin sida sharafta leh ee qiimaha leh aad noo soo dhaweyseen waxaa weeye salaadiintu meel kastoo ay joogaan waxay ka shaqeeyaan nabad wey waxa ay calooshooda burcadu soo marayaan waa dadka ay mas-uuliyiinta ka yihiin wey waxaa la doonayaa inay ka shaqeeyaanna waxaa wey waa tii loo doortay wey annagu haddaanu salaadiinta nahay shalayna waanu sheegnay siyaasiyiintu arrinkoodu waa gaar oo dana gaara iyo maamulada markaa iyagu ay mas-uulka ka yihiin ayuunbay waxaa weeye danahooda iyo hawlahooda inta badan oo loo igmaday oo ay qabtaan laakiin ninka isimka ah ee garaadka ah ee suldaanka ah isagu waxaa weeye wax xuduuduu leeyahay ma jirto meel kasta oo ummadda afka soomaaliya ku hadasha ay joogto nabaddeeda iyo isku xidhkeeda iyo qiimaynteeda iyo ka wada hadalkeeda intaba way u taallaa marka waxaan idin leeyahay aad iyo aad iyo aad baad u mahadsantihiin sidaa sharafta leh aad noo soo dhaweyseen oo aad noo qiimayseen ilaahayna ha idiin qiimeeyo ilaahay ha idin barakeeyo ilaahay talada absirta hayna waafajiyo ilaahay quluubteena iyo qalbadeenna ha isu soo jeediyo ilaahay calooshana burcada isu mariyo ilaahu madar khayr qabaanu kaa barinay ilaahu waxba dooran karnaa adigu noo doon ilaahu laba talaba tiiroon baanu kaa barinay ilaahu intii dhamatayna u naxariiso inta bugtana shaafi inta xanuunsanaysa ilaahu caafimaad sii ilaahu soomaali waad aragtaa dhibka haysta koonfure ilaahu dhibka dulqaad ilaahu inta halkan joogtana ilaahu karaamee اللهم صل على سيدنا محمد dhaqanku uu naaxiyo odaygu urtii iyo gaaraadiyo sultaan gabka cidi gashiya gardarrada dhacdaba goodhiyo ayaankeen lawaaba iyo golo iyo arda garta noogu naqa umad gacaalaho dhaqanku uu naaxiyo odaygu urtii iyo gaaraadiyo sultaan gabka cidi gashiya gardarrada dhacdaba gooriyo ayaankeen lawaaba iyo gola iyo arda garta noogu naqa umad gacaalaho gayga somalilan geeska afrika bah nabad lagu gumiyo guri lagu nasto gaar tagayahe Africa
Open it.